السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha sharafta leh ee ku xiran janalkeena soo dhawaada walaalayaal ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiiso badan. alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay mahado idin u sugnaatay. allahaasoo noo suurtageliyey maanta anagoo caafimaad qabna inaan dib isugu soo noqono oo muuqaal kale xiiso badan aan idin soo gudbiyo. alxamdulillaah intaa kadib walaalaha sharafta leh aan isxasuusino salliga xabiibkeena Muhammad. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سو دواذا انتي ولال حنوصا إلهي سبحانه وتعالى عافما تمسيو انتي كربيسا إلهي كربتها كفيدو نوال بمراد كيسا أو معسي لهين إلهي سبحانه وتعالى هسيو ولا لا قروح بدن وحان كهد لدونا مانتا قصص كمدا قصوين كا أما دعذوين كاللغا أركي استغفارتا ayaan maanta idin la wadaagi doonaa hadduu eebbaweyne karaali noqdo. qisadeena koowaad ee maanta waxay ku saabsan tahay gabadhaani waxay tiri waxaan ahaa qof aad iyo aad u akhriya istighfaarta. sababta aan istighfaarta u akhrin jiray ee koowaadna waxay ahayd ayay tiri inuu ilaahay iigu dambi dhaafo anigoona yaqiinsan. waxaan maqla ayay tiri markii hore in istighfaarta markii aad akhrisanayso oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kaga baahan tahay kaliya aadan u niyeysanin waxaas ee aad u niyeysato inuu ilaahay dambiyada kuugu dhaafo. marka waxay tiri aniga sheyga koowaad oo aan u niyeysan jiray istighfaarta waxay ahayd inuu ilaahay dambiyadeyda iigu dhaafo. si yaqiin ah ama si niyad ah anigoo rumaysan ayaan u akhrin jiray, kadib ayaan ilaahay baryi jiray. haddaba waxay tiri gabadhan ilaahay waxaan ku baryay inuu isiiyo zawj wanaagsan istighfaarta, laakiin markii hore waxaan yaqiinsanaa oo aan aaminsanaa awoodda ay leedahay istighfaarta. waxaan ilaahay ku baryay inuu dambiyadeyda ii dhaafo, kadibna ilaahay waxaan weydiistay guur wanaagsan inuu isiiyo. weliba waxay tiri arrinka yaab kale ayaa waxay ahayd shakhsi gooni ah oo aan aniga rabay oo aad iyo aad u wanaagsan oo astaamo iyo sifooyin wanaagsan leh in aan ilaahay ka baryi jiray oon ku duceysan jiray. ugu dambeyn waxay tiri muddo kooban gudahood ilaahay shakhsigii waa isiiyey, waa uu isoo raadiyey, waan isguursanay. intaa kadib waxay tiri markii aan isguursanay waxaan ilaahay ka baryay in gurigayga ii nagaado oo guri qurux badan iiga dhigo. muddo ayaan joogan ayay tiri waxaa iga soo dahay awlaadii. dhowr sano markii aan wada joognay oo awlaadii ama ilmihii ama uurkii uu iga soo daahay, haddana waxay tiri waxaan bilaabay oo aan laasimay istighfaarta. waxaana marka hore u niyeysanayay inuu ilaahay dambiyada iiga tiro oo iigu dambi dhaafo. si yaqiin ah oo niyad ah ayaan u akhrin jiray. kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiistay inuu awlaad baariyaal ah oo caafimaad qabo ilaahay igu irsaaqo. ugu dambeynna waxay tiri alxamdulillaah hadda xaamil ayaan ahay oo umusheydii ayaa soo dhow. ilaahay subxaanahu wa tacaala si nabad ah ku kala keeno. ilaahay nabad ah ku kala keeno. walaalaha sharafta leh qisadeena labaad ee maanta laga arkay istighfaarta waxay ku saabsan tahay iyadana gabadhaani waxay tiri waxaan lahaa riyadaasoo aad iyo aad u adag. yacni waxaa jirtay arrintaasoo aad iyo aad u adkeed, isma lahayn arrintaas waad helaysaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay tiri gabar aan saaxiibanahay oo saaxiibtay ah ayaan la tashtay. waxaana iri arrintaas ayaa haysataa in ay suurtagal tahay oo ma malaynayo. gabadhii saaxiibtay ahayd ayaa aad iila talisay, waxayna tiri istighfaarta waa wax cajiib ah. aniga ayaa laasimay oo waxyaalo badan ku helay ee istighfaarta laasim. sidoo kale waxay tiri niyad wanaagsan iyo qalbi wanaagsan la imow. haddii aad qof qalbiga wax uga heeso ama qof aad xasdayso ama haddii aad qof dulmiday ama haddaad qaraabo goys tahay ama haddaad dadka xamato, intaasba ilaahay ducadaada ma aqbalayo. marka arrimahaas iyo umuurahaas marka hore inaad iska joojiso oo aad ka toobad keento
oo istighfaarta u akhrisata marka hore in ilaahay dambiyadaada ugu dhaafo kadibna aad baahiyahaaga ku weydiisato. Gabadhii waxay tiri sidii ayaan sameeyey, ilaahay ayaan arinteyda u tala saartay, arrimahayga ayaan ilaahay u dhiibtay, si yaqiin ah ayaan u akhriyay. dadkii aan dulmiyey ama dadkii aan xantayna ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf ayaan ayagana u weydiiyey. ugu dambeyn ilaahay kurbadii waa iga fiiday. arrintii aan islahaa macquul ma aha, suurtagal ma aha, ma dhici kartana waa ay dhacday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu ii fududeeyey. qisadeena saddexaad ee maanta waxay ku saabsan tahay wiilkaani wuxuu yiri waxaa aad iyo aad in muddo ah iigu cuslaa inaan helo shaqo ayaa igu cuslaata ayuu yiri kadib markii aan jaamacadii iyo waxbarashadii dhameeyey. anigoo ku fikiraya markii hore haddaan saan waxbarashada ama jaamacadda u dhameeyo inaan shaqo tago oo aan shaqaysto, laakiin sidii aan maleynayay wax ma noqonin. shaqadii ayaa culays fara badan oo aad iyo aad u daran iga saarmay ayuu yiri wiilkan. waxaan akhriyay istighfaarta, waxaan u akhriyay qaabkan: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لي وللوالدين وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وحير ويل كان استغفرت وحن واقري قاب كان: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. qaabkaas ayaan u akhri ayuu yiri muddo kooban oo 2 bilood kadib ahna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isiiyay shaqo aad iyo aad u sareysa, sidoo kale mushaarka lagu qaadanayo uu aad iyo aad fara badan yahay. wuxuu yiri waxaan la yaabaa shaqooyinkii aan shalay daba orday oo aan raadinayay shaqo ka wanaagsan oo ka mushaar fiican oo ka title fiican oo ka darajo sareysa ayaan helay ayuu yiri anigoo raadsanin. kadib markii aan ilaahay bariyay aanan istighfaar la imaaday aan akhriyay: astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi li wa liwalidayya wa lilmu'minina walmu'minat الأحياء منهم والأموات. sidaas ayaan ku helay ayuu yiri shaqo. qisadeena xigta ee maanta waxay ku saabsan tahay gabadhaani waxay tiri muddo 2 sano ah ninkeyga waxaa ku soo booday xanuunkaas wuxuu ka hor istaagay shaqada. aniga waxa isaarma ayay tiri culays, waxaa nagu dhacay wax aanan tilmaami karin siday yihiin. waxaan jeclaystay inaan qof arkin, inaan meel aadin. sidoo kale waxay tiri jirka dhan ama maqaarka dhan xitaa wajiga waxa iga soo baxay nabro aad iyo aad u fara badan. waan yaabay tiri ninkeyga guriga ayuu iska jiifaa, guriga ayuu joogaa, waa uu jiran yahay, shaqadii ma aadi karo. anigiina culays ayaa isaarma ayay tiri, noloshii ayaan ku dareennay culays aad iyo aad u fara badan. sidoo kale korkeyga dhan wuxuu noqday ayay tiri wada nabro. sheekh ayaan u tagay, waxaana u sheegay arinteyda. wuxuu ii sheegay in aan guriga ku shidano suuratul baqara, sidoo kale biyo aan ku tufno oo aan cabno aniga iyo ninkeyga. sidoo kalena wuxuu igula taliyay inaan akhriyo istighfaar oo aan ku celceliyo. wuxuu yiri istighfaarta aad ugu dadaal. waxaan soo gaday ayay tiri bahalka lagu tasbiixsado, farteyda kama bixi jirin ayay tiri, aad ayaan u istighfaarsan jiray. sidoo kale suuratul baqara intaan akhriyo ayuu ninkeyga cabi jiray, anigana cabi jiray. alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore waxay tiri wuxuu iga caafiyay nabrihii oo maqaarkeyga wuxuu ii noqday maqaar qurux badan, sidii hore ayuu iigu soo laabtay. ninkeygana waa uu caafimaaday 2 sano oo uu xanuunsanaa kadibna hadda waa uu shaqaystaa. anigii waxaan dareemayaa fudayd iyo farxad aad u fara badan, maqaarkeyga iyo quruxdeediina waa ii soo noqotay. alxamdulillaah fadliga ilaahay ayay ku dhacday iyo akhrintii aan akhrinay suuratul baqara iyo istighfaarta. waxay tiri waxaan soo gatay bahalka lagu istighfaarsado, farteedana kama bixi jirin habeen iyo maalin in aan jiifam ogiye. mar walba oo aan jaanis helo si aan xad lahayn ayaan u akhrin jiray ayay tiri istighfaarta. ugu dambeyn ilaahay kurbadii waa naga feeday, noloshiina waa noo qurxiyay. qisooyinkeena maanta walaalaha quruxda badan intaas ayay nagu ogyihiin. haddaa muuqaalka meeshaan soo gaarta like saar, qaybta hoose commentigana aan ku qorno saliga xabiibkeena Maxamed. wassalaamu calaykum.